سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودايال كسو دوادا برنامج كني عيارها او انكو قادا ديجي دون نقودا باات وحيسا بدان سيدا مياد عفل لهاyd nin dhaxlay xaaskaaga iyo caruurtaada Maxi Lopez oo war cusub uu ka soo baxay iyo cadaawadii ka dambeysay in Lionel Messi uu naco laacibka reer Argentina haatanna habka amaahda ah ugu ciyaaraya kooxda Paris Saint-Germain ee Mauro Icardi ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa kooxda Manchester City oo qayb ka noqotay ugaarsiga baaxadda weyn ee lagu doonayo da'yarka goollaliye ee Haaland kama marno macallin Jurgen Klopp oo ka warbixiyay xaalka guud ee saddexda ciyaartoy ee kala ah Joel Matip, Mohamed Salah iyo goolhaye Alisson sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa rikoorka liita oo ay ka haystaan saddex aflaha kooxda Liverpool kooxda Manchester United qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan inta uu hawada ka baxayo ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya halkani waa Tulito Channel anigana waa Maxamed Cabdirasaaq Tolman aan ku bilaabanne kooxda Liverpool ayaa axadda u safraysa magaalada Manchester si ay halkaasi ugu soo ciyaarto kulan ka tirsan toddobaadka sagaalaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaana ay booqanayaan istaadiyihii baaxadda weyna ee Old Trafford iyadoo kooxdani ay tahay kooxda kaliya ee ilaa iyo haatan aanan hal dhibic khasaarin halka Manchester Unitedna ay dhex shabaalinayso qaab ciyaareedkeedii ugu liidana marka la eego tan iyo markii loo bixiyay magaca horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska xidigaha uu hogaamiyana macallin Jurgen Klopp ayaa shaqaystay 24 dhibcood kadib 8 kulan oo ay ciyaareen sidoo kale 17 kulan oo xiriir ah ayay guuleysteen isku darka kulamada fasal ciyaareedkan iyo waliba xilli ciyaareedkii hore sidaas darteed waxay isha ku hayaan rikoorkii horay ay u samaysay Manchester City oo ahaa midkii ugu dheeraa marka la eego guulaha xiriirka oo gaaraya ilaa iyo 18 gool Manchester United iyadana waxay ku jirtaa qaab ciyaareed aan sidaasi u qurux badnayn oo maxaa yeelay 9 dhibcood oo kaliya ayay shaqaysteen 8 kulan ay ciyaareen waxaana ay fadhiyaan booska 12aad ee kala saraynta horyaalka taasi oo kaga dhigan in ay tahay bilaabashadoodii ugu xumayd tan iyo markii magaca Premier League la bixiyay haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa waxqabadka saddexleyda weerar ee kooxda Liverpool sidoo Mane Mohamed Salah oo lagu daray Roberto Farmino haddaba rikoor caynkee ah ay ka haystaan kooxda Manchester United Roberto Farmino iyo sidoo kale Mohamed Salah ayaa ku guul daraystay in hal jeer shabaqada Red Devils ay soo taabtaan halka sidoo kale Mane isagana uu soo taabtay shabaqada kooxda Manchester United fasal ciyaareedkii dhawaan la soo dhaafay xilli uu gool dhaliyay kulankii kooxda Reds 3 gool iyo gool ay ka gaadhay dhigeeda Manchester United taasi oo la micno ah in Roberto Farmino iyo Mohamed Salah gabi ahaanba rikoor wacan aysan ka haysan kooxda Manchester United hase yeeshee waxa la sugayaa waxa dhici doona maalinta axadda siiba ciyaarta dhexmari doonta kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo noqon doonta mid lagu go'aamin doono in Liverpool ay jibin karto rikoorkii guulaha xiriirka ahaa oo ay u dhigtay Premier League kooxda Manchester City isla markaana diiwaan cusub ay u furan karto Premier League kaasi oo noqonaya in markeedii ugu horeysay taariikhda 9 kulan oo xiriir ah ay guuleysato fasal ciyaareed ka tirsan kulamada laga ciyaarayo cariga England sidoo kale kooxda Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu dambeysay ee ku soo birta ugaarsiga baaxadda weyn ee loogu jiro weeraryaanka kooxda Red Bull Salzburg ee la yiraahdo Erling Haaland sida ay qortay jariiradda Sun dhaliyahan da'da yar ayaa xilli ciyaareed aad u wanaagsan wuxuu ku ciyaarayaa xagga iyo Champions League taasi oo ku muujinaysa in dhinac kasta uu soo jiitay dhaayaha kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda Yurub ilaa iyo haatanna waxa isha ku haya horumarka uu samaynayo Haaland kooxaha kala ah Manchester United iyo sidoo kale
Juventus waxaana qayb ka ah kooxaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona. si kastaba Haaland wuxuu dhex jibaaxayaa xirfad banooni oo dhinac kasteetaba soo jiidasho leh taasi oo ku qasbaysa in koox kasta dabarucdayn iyo raacda ay u gasho. sidoo kale maalmahan waxaa dhagaha loo taataagayay halka uu ku dambayn doono muranka xooggan ee ka taagan maalinta la ciyaari doono kulanka ugu baaxadda weyn qaaradda Yurub ee El Clasico kaasi oo ay ku ballansanayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona garoonka Camp Nou 26 bishan October ee ku beegan maalinta Sabtida ah. hase yeeshee lugta hore ee kulanka El Clasico ayaa noqday kulan muran xooggan ka dhaliyay marka la eego qaaradda Yurub sababa la xiriira in khilaaf iyo qalalaas uu ka taagan yahay gobolka Catalonia oo doonaya in gabi ahaanba uu ka baxo xukunka dawladda Spain. xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaana dhinac kasteetaba waxay go'aansadeen in laga dhigo 18 bisha December ee ku beegan maalin Arbaca ah sababa la xiriira amniga dartiis. go'aankan ayaa yimid ee xiriirka kubadda cagta ee Spain ka gadal markii kooxaha Real Madrid iyo sidoo kale Barcelona ay diideen in lugta koobaad lagu ciyaaro garoonka Santiago Bernabeu iyo waliba caasimadda Spain ee Madrid oo xaaladeedu ay degan tahay. ma cafin lahayd nin xaaskaaga iyo caruurtaada kala wareegay Maxi Lopez oo ugu dambeyntii u muuqda mid cafiyay Mauro Icardi. Maxi Lopez ayaa u muuqda mid haatan iska cafiyay xidiga isku wadanka yihiin ee Mauro Icardi kaasi oo ka hoos xaday xaaskiisa iyo caruurtiisa. weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain isla markaana haatan amahda ugu maqan kooxda Inter Milano ayaa saaxiibkiisii hore ee Maxi Lopez oo guriga ku soo dhaweeyay kala wareegay xaaskiisa Windenera oo haatan isaga u dhaxda ahna wakiilkiisa. Mauro Icardi ayaa xiriir la sameeyay Windenera iyadoo weli uu qabo Maxi Lopez oo ay saaxiibo fiican ahaayeen waxaana ay ahayd khiyaanadii ugu weyneyd ee kubadda cagta ebed ka dhacda. caruurta Maxi Lopez ayaana la nool haatan xaaskiisii hore ee Windenera iyo waliba sidoo kale Icardi. si kastaba Maxi Lopez oo 35 jir ah ayaa sheegay inuusan wax colaad ah u qabin Icardi kaasi oo xulka qaranka Argentina kaga maqan caloolxumada ay u qaadeen xidigaha kale ee heer Argentina isla markaana la saftay Maxi Lopez gaar ahaan Lionel Messi. waxaana ay ahayd dhacdo dhinac kasteetaba ama ka ku noqotay caalamkan. Maxi Lopez oo laga wareysanayay idaacad laga leeyahay dalka Argentina waxa la weydiiyay su'aal ahayd haddii uu gaaray waqtigii uu ku cafin lahaa Mauro Icardi wuxuuna ku jawaabay ha wax colaada cidna uma qabo anigoo bini'aadanimo u hadlaya waa kaliya in aan doonayo inaan farxad geliyo caruurtayda hamigayga oo dhan waa kaas. wixii ka soo heray waa wax hore oo dhacay waan iska iloobay mar hore wax saamayn ahna iguma lahan haatan ayuu yidhi Maxi Lopez oo dhinac kasteetaba xaaskiisa isagoo ilduufsan laga dhacay qaatayna saaxiibkiisii uu guriga ku soo dhaweeyay ee Mauro Icardi. laakiin dadkoo dhan isku cayn ma ahan. colaadii uu halkaasi kaga qaadayna Lionel Messi Mauro Icardi waa mid ilaa iyo haatan taagan oo Maxi Lopez waxaaba kaga xanuun badnaaday dhacdadii ku dhacday il capitano Lionel Messi oo ah hogaamiyaha xulka qaranka Argentina iyo sidoo kale kooxda Barcelona halkaasina ku hantay qulubta dadyo badan oo maxaa yeelay waa wax lama iloobaan ah oo baalka madow galay. sidoo kale taageerayaasha kooxda Liverpool iyagana waxay noqonayaan kuwa gabi ahaanba wadnaha farta ku haya maadaama ay dhaawacyo kaga maqan yihiin 3 ciyaartooy oo wada cajiib ah kuwaasi oo kala noqonaya Joel Matip, Mohamed Salah iyo waliba goolhayaha reer Brazil ee Alisson. hase yeeshee haatan xaaladda guud ee kooxda waxaa ka warbixiyay macallin Jurgen Klopp waxaana uu leeyahay Alisson, Mohamed Salah iyo Matip way fiican yihiin. sida ay u fiican yihiin waxaan ku ogaan doonaa tababarka labaad ee soo socda kadib ayaan gaari doonaa go'aankayga ugu dambeeya ayuuna yiri macallin Jurgen Klopp oo dhinac kasteetaba cadeeyay in xaaladoodu ay soo raaynayso. laacibiinta kale ah Mohamed Salah, Joel Matip oo kamida udub dhaxadyada difaac ee ugu wanaagsan kooxda Liverpool si lamida goolhayihii libaaxa ahaa ee Alisson oo si weyn ay u tabayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. dhinaca kale kooxda Inter Milano iyadana waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii bisha January ay ku ili lahayd laacibka ku jahwareersan la qabsiga kooxda ka dhisan maslaxadda riyada ee Old Trafford ee Nemanja Matic.
31 jirkan ayaana haatan haysan dooqa koobaad ee macalin Ole Gunnar Solskjaer taasi oo ku qasbaysa in dhinac kasteetaba waqti xaadirka kan uu ku fikirayo sidii gabi ahaanba ugu tagi lahaa maslaxadda riyada ee Old Trafford oo dhinac kasteetaba kooxda waqti xaadirka kan laacibkan reer Serbia ee Nemanja Matic waxa ku haysata qanaaco la'aan waana sababaha ku qasbaya in kooxda Inter Milano sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalab ugu soo gudbiso isla bisha January guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah